maanteed culimada professorada macallimiinta ardayda bahda saxaafadda iyo mas'uuliyiinta labada golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka dhammaan waa salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda alsalaam, dee ujeeddada la isugu yimi oo kulankani waa furitaanka kulliyadda kalluumaysiga ama cilmiga badda baan idhaahdo jaamacadda City Code. aad baan u bogaadinaynaa inay jaamacaduhu u soo jeestaan aragtidii waxna ka qabtaan aragtidii dowladdan oo ahayd war khayraadka ilaahay dhulka wuu u qaybiyey, waxa aynu inagu ku habboon dhulkeenna oo wax soo saar aynu ka heli karno aynu ku jeedinno dadkeenna, cilmi ahaanna ha loo barto. wax cajiiba weeye hadduu xoolihii yahay, kalluumaysigii, beerihii iyo macdantii, geologigii, cilmigii miningka ama aan dhahnaba. waa bogaadinaynaa arrintaa. si gaara barnaamijka cilmiga badda ee jaamacaddu soo kordhisay lana daahfurayo iyadana waa soo dhowaynaynaa. in la helo sektarka cid aqoon ahaan barata, ka shaqaysa, horumarisa cilmigiisa, wax cajiiba weeye. inta ugu yaroo faa'iidadiisaan idiin sheegaya. haddii aan la heleen jaamacado ka shaqeeya cilmiga badda, ugu yaraan kalluunkii soo caariyey oad aragteen doraad galab xeebta lagu soo caariyey, shalay waxaa ka howlgalay jaamacadda bariga africa oo dhigta cilmiga badda, jaamacaddii ugu horraysaya, iyo jaamacadda City Code oo jaamacaddii labaada ayaa samballadii ka soo qaaday, nagala shaqeeyey, shalay subax meeshii tegey, haddana baaritaankii sii wada si aynu u xaqiijinno cilmi ahaan maxaa sababay waxa sababay maxay yihiin. maan rabno inaannu iskala boodno, waxaan rabnaa go'aamada iyo talada iyo warka inay aqoontu hoggaamiso oo saynisku hoggaamiyo oo fasalu ahlal digri ay noqotee dadka aqoonta u leh wax laga weydiiyo. inta microphone la iska qaato in wax la iska dhaho lama rabo. shakhsiyaad baa waxay lahaayeen social media-da sun weeye, wax suna meesha waa laga saaray. sababtoo ah hadduu sumoobo, noolaha kale oo badda ku jira haddii badda suni gaartay ayaa dhiman lahaa. wax noole kaleeta ah oo xeebtii iyo aaggaas lagu arkay oo dhintay oo laga helay ma jiro. taasi marka waxay meesha ka saaraysaa wax caama oo ku dhacay noolaha badda ayay meesha ka saaraysaa oo ay ka siman yihiin. taas intaasoo ugu yar inta cilmiyan lagu go'aan gaaro markii aqoonta loo leexdo. intaas kadib jaamacadda waa bogaadinaynaa, facultigana waa la shaqaynaynaa ka wasaarad ahaan. in ninka muxsinka ee ku deeqay inuu facultiga wado waa wax yaab leh. waxaan rabnaa inay muwaadiniinta kale ee dhaqaale ahaan awooda inay ku daydanayaan rabnaa. aad baan ugu mahadinaynaa, ilaahay ajarkeeda ku siiyo ayaan leenahay. isagana scholarshipkiisa magac baanu u bixinaynaa. scholarshipkii hore oo dowladda waxaanu u bixinay kalluun scholarship, yaa deeqda waxbarashada kalluun. waad aragteen baan u malaynaya. tanna insha allah magaceedii waa soo diyaarinaynaa, sawirkiisana noo soo dira iyo backgroundkiisa haddii alla idmo. aad buuna u mahadsan yahay. wasaaradduna si gaaray ula xiriiraysaa. waxaan rajaynaynaa oo dowladdan xilligan u muuqatay in dadka aqoonta ay hagto shaqo kastoo la qabanaya. waxyaalaha hadda aan xoogga rabno inay jaamacaduhu saaraan waxa weeye si gaara oo aanay ka muuqan jaamacadaha sektaradii aynu isla sheegnay ee wax soo saarka iyo waxtarka dadkan u leh. waxaa ka mid ah geologiga, cilmiga miningka. jaamacaduhu waxaa la rabaa midba in iyadoo adeegyadii kale ee waxbarashada bixinaysa laakiin sektar loogu tago ee loo soo doonto
meelo looga soo safro inay yeelato jaamacadda City Coast maadaama ay cusub tahay waxaan ku dhiirigelinayaa inay qaybtii miningka ku darto oo ardayda buurahan geyso oo dhulka laga qodayo milxa iyo macdanta laga qodayo geyso practice-ka u geyso oo baarista u geyso waa fursad deegaankan iyo maamulkan Puntland uu haysto iyo dadkeeduba fursadaas marka waxa la rabaa labaad ee macdanta in la helo kaadir muwaadiniina ee aqoonta u leh waad aragteen wax soo saarka meelaha u fiican dadkan macdanta ka shaqeeya ama shirkadaha ka shaqeeya ajaanib baa u jooga dad ajnabi ah wadamo kale laga keenay haddii aqoonyahan Soomaaliya uu joogi lahaa ee bay'adiina garanaya luqadii dadka shaqaalaha garanaya wax soo saarku waxaan aaminsanahay cilmigiina markaa yaqaana wax soo saarku intaas uu ka badan lahaa marka please waxaan rabnaa maanta inay halkan soo gaarto fariin ah Ilaahay idankiis muwaadin kale ee Soomaaliyeed oo leh deeq waxbarasho oo macdanta iyo barashadeeda cilmiga macdanta iyo barashadiisa geologiga iyo miningka ayaan ku deeqay hal la furo macallimiinteena aniga bixinaya baash waa sahlanaatay macallimiinta kaliya la bixinaya haday 4 sano tahay 5-6 macallin oo kala duwan ayaa la bixinaya marka cidii inaka qaadi lahayd waa sugaynaa muwaadiniintan ka sugaynaa si gaar ah waxaan rabaa inaan u tilmaamo shirkadaha waaweyn ee ganacsiga khaasatan kuwa telecomka haddii hal koorso oo 45 qof ay dhiganayaan ay 20,000 iyo wax la jira wax 25,000 ka yar sanadkii ay noqotay de shirkadu way bixin karaan inay dalka wax ku celiyaan baa la rabaa social responsibility baa jira marka waxaan sugaynaa ilaahay inadinkii shirkadii soo hormari lahayd waan ognahay inay ka qayb qaataan waan ognahay inay wax badan qabtaan oo nolosha dadka ka qayb qaataan oo contribution ka geystaan laakiin jaamacadda waaxdi miningka oo sektoradeena fursaduhu ka jiraan kamida shirkadii ku deeqi lahayd mas'uuliyadaas isa saari lahayd hadii walaal Cabdulqaadir oo faculty-ga kalluumaysiga City Coast ballan qaaday wasaaradda iyo dawladuna ay ballan qaaday cilmiga badda wakaaladda waaxdi cilmiga badda jaamacadda bariga Afrika waxaan rabnaa qofkii ama shirkadii ballan qaadi lahayd geology and mining cilmiga baarista macdamaha in la helo waa ka sugaynaa muwaadinkii u soo hormari lahaa wax weyn bayna taraysaa inaynu baranno ka warrama 4 sano kadib hadaynu helo 20-30 engineer oo yaqaana cilmiga baaristoodii analysiskoodii waxaas oo dhan laababkii baa la helayaa mar alla markii koorsada la bilaabo laababkiina waa khasab waa la helayaa waa is wataan ugu dambeyntii annagu wiigan waxaanu ka shaqaynaynay midaynta manhajka cilmiga badda oo aanu kala shirray jaamacadda bariga Afrika jaamacaddan City Coast iyo macadka kalluumaysiga oo macadku ilaa diblooma bixiyo waqti dheerna wuu jiray waana mahadsan yihiin odayaashii soo waday ma rabno inay jaantaar roga noqoto oo laga soo koobiyo manhajka meelo kale cilmiga adduunku waa kala qaataa laakiin cilmigu waa fara badan yahay maxaa inaga nolosheena maanta aynu ku dabaqi karnaa iyaynu ku kala duwanaanaynaa jaamacadaha kale ee adduunka annaga maxay tahay inaan xoogga saarno ma fisheries management baan xoogga saaraynaa ma fisheries technology aynu xoogga saaraynaa ma fisheries biology and science miyaynu saaraynaa conservationka miyaan saaraynaa mid kasta intee ka qaadanaynaa ayay odayaasha iyo khubarada aanu isugu yeeray ka shaqaynayeen hawshaasina waa gabagabo ma rabno ardayga City Coast ka baxay iyo ardayga East Africa ka baxay iyo inayan niman aquaculture maxaa la yiraahdaa aqua farmski iyo farm fish iyo inaga
kii badda ku jiray oo ka buuxay oo 3 daqiiqo baan u malaynayaa mar la tijaabiyey every 5 minutes waxa soo qaban kartaa kalluun haddaad xariga u ridato every 5 minutes every 10 minutes baad kalluun ku heli kartaa haddaad xariga u ridato marka maadaama stoogii uu jiro oo baddu dehin tahay innaga beeristu weli priority inooma ah kan ku jira inaynu la soo baxno natural growth ah sida dabiiciga u koray ayaa muhiimadu tahay marka xagee bay manhajyadaasi culays ka saarayaan khubarada ka shaqaynaysa waxaan rabnaa inay noo soo baxaan xirfadle aqoon-yahan in kaga filaada cilmiga badda arrintaasi jaamacadaha waa u sheegnay gorgortan kama gelayno meel kastana in albaab laga furo oo la yiraahdo cilmiga baddaan dhigaynaa ma rabno inaan iswaafajino ciddii wax dhigaysa soo dhawaada dhiga dadka baranaya waa dhiirigelinaynaa in la barto laakiin manhajka dawladda oo annaguna aan soo jeedinayno annagoo isticmaalayna aqoon-yahankii badda cilmiga badda wasaaradda waxbarashada oo inoo haysa tacliinta sarena ay iyadu diiwaan geliso ogolaato ayaan rabnaa kaasaan rabnaa in la dhigo haddii alla